maanta oo ah 21 September golaha wasiirada xukuumadda federaalka ayaa yeeshay shirkoodii caadiga ahaa oo shir gudoominayay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar arrimaha kulanka looga hadlayo waxa kamid ahaa amniga qaranka mowqifka Soomaaliya ee arrimaha khaliijka miisaaniyadda 2018 iyo arrimo kale ugu horeyn wasiirka amniga gudaha ayaa golaha siiyay warbixin ku aadan arrimaha amniga sheegayna in xaaladda amnigu ay soo roonaanayso isla markaasna hay'adaha amniga ay laba jibaarayaan howlgallada xasilinta shacabkana laga codsaday inay hay'adaha amniga ku gacan siiyaan si dalka loo nabadeeyo maanta bacdama ay tahay 21 September ahna maalinta nabadda adduunka golahu waxay hoos ka xariiqeen ahmiyadda nabadda u leedahay dalka Soomaaliya isla markaana ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed in nabadda la wada ilaashado horumarka dhanka amnigana loo baahan yahay in la wada xajisto kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa golaha wasiirada u sheegay muhiimadda ilaalinta sharciga iyo nidaamka dawladeed kadibna golaha wasiiradu iyagoo tixgelinaya xaaladda dalku ku sugan yahay ayaa waxay isla garteen arrimaha ku aadan muranka khaliijka ama wadamada carabta arrimahan soo socda golo waxay si adag u aayideen mowqifkii dawladda federaalka ee bishii June 2017 ee qeexayay in Soomaaliya door dhexdhexaad ah ka taagan tahay muranka wadamada khaliijka qaarkood una aragto in khilaafka jira lagu xalliyo si nabadgelyo ah oo ay walaaltinimo iyo diblomaasiyad ku dheehan tahay dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku guuleysatay wada shaqeynta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka iyadoo qabatay 2 shir 6 bilood ee ugu dambeysay taasoo ay muhiimadu ahayd ka wada shaqeynta xoojinta amniga iyo midnimada qaranka 3 sida ku cad qodobka 54 ee dastuurka kumeel gaarka ee Soomaaliya dawladda federaalka oo kaliya ayaa awood u leh go'aanka gaarista arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada socdaalka iyo siyaasadda lacagta 4 Soomaaliya weligeed doorkeedu wuxuu ahaa inaynan wadamo walaalo ah lala kala safan oo mar walba laga shaqeeyo wadajirka wadamada Carabta Afrika iyo kuwa Islaamka ah haddaan tusaale soo qaadano doorkii Soomaaliya ee heshiiskii Camp David ee dhamaadkii 70meeyadii wuxuu ahaa in Soomaaliya ay diiday in xiriirka loo jaro dalka Masar taasoo keentay in markii dambe ee wadamadii Carbeed heshiiyaan go'aankii dhexdhexaadka ee Soomaaliya qaadatayna noqday mid lagu amaanay sidoo kale go'aankan muranka wadamada khaliijka qaarkood ee golaha wasiiradu maanta mar labaad ayiday waxa soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo waliba beesha caalamka ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa warbixin ka dhageystay wasiirka maaliyadda ee ku aadan miisaaniyadda 2018 iyadoo la isku raacay isu diyaarinta iyo habraaca nidaamka maaliyadeed ee keeni kara isla xisaabtan hufnaan iyo maamul wanaag waa mahadsantiin